waxaanu qodobkan ku eegi doonaa daraasad cusub oo go'aamisay in uu jiro xiriir ka dhaxeeya xumaanta bandhigga maskaxda qofka in tusaale ahaan uu hoos u dhaco garaadka qofku iyo adeegsiga xad-dhaafka ah ee telefoonka casriga ah ee loo yaqaano smartphone. balse dhagaysta iyo daawada si aad uga bogato barnaamijyadeena subscribe dheh sidoo kalena gambaleelka riix si aad noola socoto. haddii aanu barnaamijka guda galana isticmaalka xad-dhaafka ah ee telefoonada casriga ah ee loo yaqaano smartphones ayaa waxa ay keentaa hoos u dhac xoogan oo ku yimaada awoodda shabakadaha maskaxda ee loo yaqaano neurons ee mas-uulka ka ah xakamaynta garashada iyo howlfulinta sida lagu sheegay cilmi baaris cusub oo lagu daabacay mareego dhowr ah. hoos u dhaca habsami socodka dhaqdhaqaaqa fariin wadayaasha yaryar ee maskaxda ee loo yaqaano neurons waxay saameyn muhiima ku yeelan kartaa fahamkeena ku aadan qabatinka aaladaha dijitaalka ah sida telefoonada, iPad-ka iyo wixii la halmaalaa. ujeedada ka dambaysa daraasadan ballaaran ayaa ka dhalatay walaaciisa soo taraya oo laga qabo saameynta telefoonada casrigii ku yeelan karaan caafimaadka maskaxda iyo nolol maalmeedkeena. sanadii lasoo dhaafayna mawduuca isticmaalka xad-dhaafka ee telefoonada casriga ah ayaa soo jiitay dareenka dadka iyadoo ay daraasado dhowr ahi muujinayaan saameyntooda xun ee jireed, maskaxeed iyo fayaqabka bulsho ahaanba. cilmi baarayaashuna waxa ay doonayeen inay arrintan sii sahmiyaan iyagoo eegaya xiriirka ka dhexeeya telefoonada casriga ah ee loo adeegsado sida xad-dhaafka ah iyo dhaqdhaqaaqyada maskaxda, gaar ahaan qaybaha garashada sida dareenka, go-aan qaadashada iyo xusuusta. daraasadoodan cilmi baarayaashu waxay si taxadar leh u doorteen 39 qofood oo ay ku xusheen shuruudo gaar ah sida da'da, xirfadaha luuqadda iyo inaanay qabin cudurro la xiriira maskaxda iyo dhimirka. da'da markaanu leenahay dabcan waxay ahaayeen dad dhalinyaro ah. ka qaybgalayaashii daraasadda ayaa waxaa deeto loo kala qaybiyey 2 kooxood. qaarka sida xad-dhaafka u isticmaala telefoonada iyadoo wax lagu saleynayo dhibcaha ay ka keeneen miisaanka qabatinka telefoonada ee loo yaqaano smartphone addiction scale oo ah qaab si weyn loo aqoonsan yahay oo lagu cabiro dadka ay balwadda u noqotay ee muddo dheer ku dhaygagsan telefoonka iyo dadka cagsigooda ah ee aan sidaa ugu badnayn ama u isticmaalin telefoonada. ka qaybgalo kasta ayaa waxaa markaa lagu sameeyey qiimeyn joogto ah ama xiriir ah oo loo adeegsanayo hanaan kale oo isna lagu ogaado xaddiga telefoon adeegsiga kaasoo loo yaqaano smartphone addiction inventory ama SPI. gaar ahaan wuxuu muhiim u yahay dhinacyo ay ka mid yihiin waqtiga lagu bixiyo isticmaalka telefoonada casriga ah iyo rabitaanka balwad ahaaneed ee isticmaalkooda si loo qiyaaso xiriirada kala duwan ee ka dhexeeya ku talaxtaga telefoonka casriga ah iyo caafimaadka maskaxda. daraasadan ayaa sidoo kale loo adeegsaday sawirka iskaanka ah ee indhaha fiiqan ee loo yaqaano MRI ama magnetic resonance imaging si loo qabto sawirro faahfaahsan oo ku saabsan habhowleedka maskaxda dadka daraasadan ka qayb galay, gaar ahaan inta ay ku howlan tahay maskaxdu shaqooyinka kala gedisan ee loogu talagalay in lagu tijaabiyo garashada maskaxda iyo u kala wareegidda dabiiciga ah ee dhinacyada kala duwan sida feejignaanta, xusuusta iyo ka jawaabista tilmaamaha la siiyo ama fariimaha soo gaara. waxaa haddaba yaab lahayd in habkani uu u ogolaaday cilmi baarayaasha inay aqoonsadaan qaabab gaar ku ah habhowleedka maskaxda dadka sameeya isticmaalka xad-dhaafka ee telefoonada casriga ah ee smartphones. kooxda ku fogaatay isticmaalka telefoonada casriga ah ee ay balwadda u noqotay waxa ay muujiyeen awood aada u hooseysa marka ay timaado dhanka gobolada maskaxda ee loo yaqaano shabakadda frontoparietal network. shabakadan ayaana dabcan muhiim u ah dhanka kontaroolka feejignaanta qofka, diirad saaridda hal hawl iyo sida aan u xakamayn karno dareenkeena marka aanu la kulanno waxna jeedin karaa. waxaa haddaba xiise leh in sida ay jir ahaan u shaqaynayso maskaxda dadka ay balwadda u noqotay adeegsiga xad-dhaafka ah ee telefoonada lagu arkay qaabab lamid ah dabeecadaha dadka qabatima daroogada caadiga ah sida kokaynta, heroinka iyo wixii lamid ah. si kastaba ha ahaatee daraasadan oo lagu sameeyey dalka Romania waxa ay leedahay 2 iimood. hal walaac oo muhiim ah waxa uu ka taagan yahay dhanka cabirka muunada la adeegsaday oo kooban. tusaale waxaa ka qayb galay 39 qof oo qura iyo tan labaad oo ah dadka daraasadan lagu sameeyey oo wada dhalinyaro ah isla markaana aanay ku jirin dad dhexe ama qaar da ah. taasoo xadidi karta guudeynta natiijada ka soo baxday daraasadan imika la sameeyey. intaa waxaa dheer naqshadeynta daraasadu ma saamaxayso in la sameeyo go'aamin kama dambeyn ah oo ku saabsan inay jiri karaan waxyaabo kale oo iyana keeni kara in maskaxdu ay sidaa u shaqayso. cilmi baaris dheeraad ah ayaana sidaa darteed mustaqbalka loo baahan yahay si loo sii saxmiyo arrintan iyo xitaa in la go'aamiyo in isbedeladan ka dhashay isticmaalka xad-dhaafka ay yihiin kuwo joogto ah ama in dib loogu soo celin karo habhowleedkoodii caadiga ahaa. maxamed xaaji, Hadalsama TV.